السلام عليكم داود يا لواني وادوح شريف حسن دوسنبا waxaan rabaa maanta halkan idin ku soo gudbiyo qiso cajiib badan inkastoo aan maanta xogaa xanuun yar dareemayo balse qisada oo ahayd waxaan laga aamusi karin misana cajiib ah misana ku tusaysa saaxiibka wanaagsan wuxuu yahay ayaan rabaa inaan maanta halkan idin ku soo gudbiyo qisadan waxay dhex martay laba wiil oo saaxiibo ah ayaa safar wada galay xilli habeen ah ayay magaaladii ay u socdeen soo gaadheen hotel ayayna hal qol ka kireysteen oo ay seexdeen waaga markii uu bariyay ayay soo tooseen mid ka mid ah labada wiil ayaa wuxuu waayay lacag $50 ah oo markii uu hotelka soo galayay jeebkiisa ku jirtay saaxiibkii ayuu u sheegay in lacag $50 ay ka maqan tahay wuxuu ugu jawaabay xalay ayaan soo kacay magaalada ayaan arrin uga baahday kadib $50 ayaan hore u sii qaatay waana deyn mar kale ayaan ku siin doonaa ayuu ku yidhi intaa kadib deyntii markii magaaladii yimaadeen ayay u dhaqaaqeen habeenkii labaad ayay ku soo laabteen hotelkii shaqaalaha hotelka mid ka mid ah ayaa isla markiiba u yimi wuxuuna ku yidhi markaan saa ka baxdeen waxaan damcay inaan qolkiina hagaajiyo balse waxaan sariirta hoosteeda ka helay lacagtan $50 ah ayaan ku arkay hooya midkii lacagta lahaa ayaa si la yaab leh u fiiriyay saaxiibkii wuxuuna ku yidhi soo imaa sheegan inaad adiga $50 qaadatay saaxiibkii ayaa wuxuu ugu jawaabay qolka labadeena oo kaliya ayaa ku jirnay haddaan ku dhihi lahaa anigu ma arkin shaki iyo shaydaan ayaa dhexdeena soo geli lahaa sidaa darteed ayaan go'aansaday inaan lacagta anigu ku siiyo ee aan jaabkayga ka bixiyo oo aysan saaxiibtinimadeena halkaasi ku burburin ayuu yidhi sheekadan waxaa idiin soo gudbiyay aniga oo dhuux shariif xasan dhuuxsinba haddii aad ka hesha leeg iyo sheer walal intaan sheeko lamida ku kulmi doono waxaan idinka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu